qofka markii wareysi laga yeelanayo kaas oo ah wareysiga markaas dadka sharciga lagu siiyo waxa wareysigaas loo kala qaadaa laba qaybood mid waa protocolka midna waa wareysiga qofka la wareysanayo su'aalaha qofka la weydiinayo iyo jawaabaha uu bixinayo hadaba qaybta ugu horeysay ee muuqaalkan waxa ku soo daawateen protocolka muxuu yahay qofka maxaa laga rabaa qaabka inuu sameeyo looga baahan yahay haddii markaasi qaybtii hore aad soo daawan waa ku muhiim in aad qaybta hore soo daawatay si qaybtan aad ula qabsatid qaybtan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa oo aan uga hadli doonaa wareysiga hadaba wareysiga iyo qaabka uu kala baxo su'aalaha qofka la weydiinayo qaabka la rabo qofka inuu uga jawaabo ayaan qaybtan labaad aan ku qaadaa dhigi doonaa hadaba waan fariisanaynaa si aan markaasi muuqaalkeena aan si degan jawi degan aan uga bilaabano isla markaana aan soo gabagabayno qaybtii labaad ee muuqaalkeena wareysiga ama interview hadaba na soo wada waan fariisanaynaa iminka haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee barteeda horyaalka shacabka YouTube-ka aad soo booqatid waxaan kaa codsanayaa si sharaf leh YouTube-ka subscribe inoo saartay sidoo kale asxaabtii hore haddaad ka mid tahana waa ku mahadsan tahay inaad muuqaalada iyo YouTube-kayga aad si toos ah uga taxan tahay fadlan like-ta iyo comment-iga waa inoo muhiim wareysiga ayaa iminka si toos ah noogu bilaabanaya waa ku muhiim inaad mar walba aad qaybtii ugu horeysay ee muuqaalka aad soo daawatid qaybta protocolka ku saabsaneyd iminkana waxa bilaabanaya interviewga marka uu bilaabanayo marka ugu horeysa waxa laga rabaa warqadaha lagu siinayo hadii lacala aad markaas magacaaga uu qaldan yahay warqadaas waxaad dhihi kartaa magacayga uu qaldan yahay magacaaga halkaas ayaad ku sixi kartaa waa jaanis ku muhiimsan badana anaga Soomaali hadaan nahay waxa dhacda in xogaa magaceena uu marka ugu horeyso uu naga qaldamo ama laga yaabay xaraf inuu ka qaldamo ama sidoo kale xilliga dhalashada laftirkeeda waxa laga yaabaa in xilligaas qaldanto marka waxa dhihi kartaa aniga xilligan ma dhalan ee xilligan ayaa dhashay taariikhda hadii kale waxaad dhihi kartaa uu magaca uu si ka yahay waxaad dhihi kartaa magacayga saan uma qornay sidan ayuu u qoran yahay markaas adiga gacantaada ayaad ku qoraysaa magacaaga sida saxda u qoran yahay hadii ay jirto qalad ku yimid magaca ama xaaskaaga hadii aad family ama xaas aad leedahay ama ilmahaaga laftirkood waa sixi kartaa sidoo kale gabar hadii aad tahay oo uu xaajigaagu ama ilmahaaga magacooda ay qaldan yahay laftirkooda waad sixi kartaa marka jaaniska ugu muhiimsan halkaas ayaad uga faa'iideysanaysaa su'aalaha lagu weydiinayo badana qaabka aad u jawaabaysid laftirkooda waa muhiim waxa lagu yiri adiga goormee baa afgooye ka soo tagtay taariikhda bal sida saxda noogu sheeg marka waxaad leedahay aniga waxaan ka soo tagay afgooye taariikhdu markay intaas ahayd ayaan u maleynayaa ayaad leedahay marka waan u maleynayaa waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku markuu u yiraahdo badana aanan qalad uusan kala kulmin laakiin haddaad dhahdid aniga waxaan afgooye ka soo tagay 2020 ayaan afgooye ka soo tagay bishii 9aad ayaan afgooye ka soo tagay 15keedii haddana saad u wadid haddana mar kale su'aashaas ay kugu soo noqoto oo aad dhahdahay waxaan afgooye ka soo tagay 2020 bishii 10aad aad dhahdid ugu qalad ayaa halkaas kaaga imaan kara marka badana waxaad dhahdaa waxaan u maleynayaa inaad afgooye ka soo tagay bishii 9aad ayaad leedahay intaas bes aad ku kaabsanaysaa maalinta ma sheegaysid waa ku muhiim marka waxaan u maleynayaa inaad badana erayadaada aad raacisid jawaabaha qaar ee sida saxda aad u ogtahay ee maskaxdaada ku jira si toos ah ayaad uga jawaabaysaa oo waxaad leedahay anigu xilligaas ayaan halkaas ka soo tagay taariikhdu markay intaas ahayd kadib halkaas ayaan imid waxyaabihii la yaabka lahaa ama dhibaatada ahaa ee aan la kulmayna waxyaabahaas ayaa kamid ah sidaas ayaad u sheegaysaa laakiin meelaha qaar ama taariikhda qaar markii la weydiiyo taariikhda waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isku gaado marka ayaan lagugu gaadin taariikhda badana inta aadan interviewga ama wareysiga aadan gelin ka hor maskaxdaada ku sii hay waa inaad sii qaybtaa marka waa ku muhiim waxyaabaha kale oo muhiimka aadka u ahna waxa waa inaad badana markaad wax ka sheekeynaysid ama dhacdo aad ka sheekeynaysid aadan dhacdadaas dad ay ku dhacday ama meelay ka dhacday aadan ka hadlin magaalada Boosaaso anoo degan ayaa habeen ay wax dhaceen ama Ilaahay kama dhigay macnaha waa tusaalan ka wadaa waxba dhacay marka meel agteeda la isku qabsaday laakiin ana la iisoo socodsan u maleynayo haddaan dhaho waa meelaha ugu daran ee la isku gaado marka badana markaad wax ka hadlaysid wax dhahdaa anoo joogay magaalada afgooye ayaa sidaas ay wax u dhaceen ana xaaladaas dhaxgalay marka ana la ii qabtay aniga waxaan la igu sameeyay aniga sidaan ay wax iga noqdeen ama aniga kufay ama aniga dhacay ama aniga
adigu waxyaaba noocaas ah inaad badanaa adiga iska hadasho nafsadaada. marka waa inaadan ka hadlin badanaa hooyadaa wax ku dhacay, aabaha wax ku dhacay, walaalka, walaasha, ilmahaaga waxyaaba ku dhacay waa inaadan ka hadlin. sababtoo ah waxa la rabo in la ogaado ayaa wax ay tahay adiga wixii kugu dhacay. misle fahna halkaas si fiican u faham waxyaabaha adiga kugu dhacay nafsiyan ahaan ayaa laga rabaa in la ogaado. qofkan interviewga kula yeelanaya marka qaar wuxuu ku leeyahay walaasha wixii ku dhacay ama ilmahaaga wixii ku dhacay aniga wuxuu leeyahay muhiim ima ahan, laakiin adiga nafsadaada maxaa kugu dhacay ama nafsadaada haddii hadda Soomaaliya lagu geeyo maxaad kala kulmi kartaa. ani hadda Soomaaliya haddii la geeyo Soomaaliya waa sidaan Soomaaliya waa noocaan, Soomaaliya waa kada, Soomaaliya baad ka hadlaysaa laakiin adiga iskama hadlin. marka waa inaad dhahdaa hadda aniga Soomaaliya haddii la geeyo aniga waxa igu dhici kara waxyaabihii shalay aan wadanka uga soo cararay oo ay kamid yihiin sidaas iyo sidaas, sababtaas ayaanan wadankayga ugu noqon karin. interviewga waa ku muhiim. protocolka oo muuqaalka hore aan uga soo hadlay iyo kan oo aan uga hadlay interviewga waxa lagu weydiinayo iyo qaabkaad uga jawaabaysid iyo qaabkaad u hadlaysid waa ku muhiim. intaas haddaad martid anaa og sharcigii farta ayaa laga saaraya. midna ogow badanaa qofka ku wareysanaya ayuu ka go'aanka ah in sharci lagu siiyo. taas ogow. dadka qaar waxay is leeyihiin waxaana laga yaabaa sidoo kale in lagu duubayo oo kamerana kugu socoto oo aad markaas laga rabo inaad muuqaalka ka horeeyay ee aan protocolka uga hadlayay in aad soo fiirsatid ayaa laga rabaa. sababtoo ah kamerada ku duubaysa laftirkeeda protocolkaaga iyo qaabkaaga way la qiimeynayaan. marka ogow badanaa qofkaas ayuu go'aanka ka go'a. qofkaas hadduu ku qanco wareysigaagii iyo protocolkaaga iyo nidaamkaaga uu ku qanco asagaa ku siin kara sharci, laakiin asagu hadduusan qancin way adag tahay runtii in sharci aad heshid. qof walba oo muuqaalkan daawanayo oo hamigiisu u yahay inuu sharci helo inuu Ilaahay ku guuleyn doono isla markaana uu guuleysan doono. haddaba dad asxaabtaada hadday jiraan oo hadda qurbaha soo galay waa ku muhiim inaad muuqaalkan la wadaagtid si ayaga laftirkooda ay wax badan uga faa'iidaan. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaanan kala tagin waxaan idin codsanayaa in subscribe-ka inoo taabatiin, sidoo kale laagta iyo commentiga waa inoo muhiim. muuqaalo kale intaan ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabad.